musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero ayaa dajiyay boorarkiisii ku teedsanaa wadooyinka magaalada Muqdisho ka gadaal markii musharaxu uu garowsaday inaan wax doorasho ay ka soo naasacadayn Soomaaliya dalkana la geliyo mugdi iyadoo lagu tumanayo dastuurkii dalka u dhignaa iyo xuquuqda muwaadiniinta meeshana laga saaray rajadii laga qabay in mar kale Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto musharax madaxweyne Abshir Feero oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wadamada ay xulufada iyo danwadaagta yihiin Eritrea iyo Itoobiya ay afgambi ciidamaysan ku qabsadeen shacabkii Soomaaliyeed isla markaana ay meesha ka saareen rajadii laga qabay inay dhacdo doorasho xor oo xalaal ah musharaxa oo hadalkiisa sii watay ayaa baaq u diray musharaxiinta Soomaaliyeed siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanka taasoo uga digay inay ka fogaadaan dagaalka saddex geesoodka ay soo abaabuleen saddexda kale taliye ee kala ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa Afwerki taas oo ay ku doonayaan in dalku mar kale dagaal sokeeye dib u galo isla markaana lagu burburiyo caasimadda Soomaaliya ugu dambeyntiina musharaxu waxa uu tibaaxay haddii afgambigani uu sababo dhiig Soomaaliyeed oo daata in uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la tiigsan doono maxkamadda caalamiga ah ee hay'adaha xuquuqul insaanka